gudoomiyaha degmada Buloburti Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa maanta xaraka ka jaray xafiis cusub ay yeelanayso wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle. Gudoomiye Karoore oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweyn doonaan xafiiskan cusub isla markaana ay la shaqeyn doonaan. Dhammaan waa mahadsantihiin odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo maamulka xafiiska beeraha degmada Buloburti ee go'aansaday inay maanta xaraka ka jiraan xafiiskii degmada Buloburti ee beeraha agaasimaha iyo tiimkiisa waa soo dhaweynaa anaga ka maamul ahaan hadaan nahay maamulka degmada dadka bulshada qaybada kala duwan waa nala soo dhaweeyeen. Waxaan maanta fureynaa markii ugu horeysay xafiiska wasaaradda beeraha 28 sano kadib in uu xafiiska beeraha ee wasaaradda beeraha oo ka furmo degmada Buloburti waxaana sii joogi doona oo wakiilka ah isku duwaha wasaaradda beeraha ee degmada Buloburti hir dowlad goboleedka Hirshabelle muumin beereed oo aad taqaanaan oo oday reer Buloburti ah professionkiisuna oo ay beeraha waqti dheer ka shaqeynayay. waxaan rabnaa inuu wacyigelintii iyo beerihii shaqadoodii uu bilaabo. waxaan rabnaa dadka beeraleyda inay ka faa'iideystaan arintaas. isku duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ahna dowlad goboleedka Hirshabelle Muumin Maxamed Wehli ayaa halkaasi ka hadlay asigoo ka warbixiyay furitaanka xafiiskan cusub ee wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo dhammaan degmada boobalaha ku noolaay haday yihiin ganacsato haday yihiin beeraley haday yihiin xoolo dhaqato. waxaan meeshaan u joognaa inaan xafiiskii wasaaradda beeraha ee degmada Buloburti oo noo furo gudoomiyaha degmada furidda kaliya oo maahana wuxuu isdaba yaaliin degmada oo beeraley u badan. waxaan rabnaa in aan lagu tiirsanaanin mar kasta waxa naloo keenay in lagu tiirsanaanin la rabaa in beeraha la tabcado oo wax laga soo saaro. awal dib waxa ka sheega jirteen in markii wax idiin baxaan lacala ADC ama WFP aan dhihi ay keento gali cagaartii iyo wixii kale iyadu beeraleydeeda ku soo taakuleysatay oo lacagtii xagga ku reebteen ayay keeni jireen. tuka fiican oo baybaarihii iyo galeydii iyo sisintii iyo digirtii iyo waxaasana noo baxayo in beeraha wax laga tabcado oo wax laga soo saaro. WFP maalmood waxa la saxiixday oo dowladda federaalka la saxiixatay inaysan waxba dibadda ka keenin oo ay ka gataan beeraleyda yaryarka ah oo Soomaaliyeed oo wax soo saaray oo mar walba suuqa oo ama ku baarayaan ama muxuu ahaayay bahashaas laga kor keenay ilaa cagaartii ay baarisay. waxaa la rabaa marka wax soo saar loo baahan yahay ma ahan in muxuu ahaayay meelo kale lagu miriraqeeyo. dadku waxa soo saaraano waana laga iibsanayaa wax suuqa uga baaraya ma jiraan. sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Buloburti ayaa soo dhaweeyay furitaanka xafiiska cusub. Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habi Somali News Buloburti.